maalin dhaweyto waxaa hadlay mas-uuliyiin kulliba aniga agteeda ixtiraam ku leh oo xisbiga wadani ka mid ah markaan ruuxay nuxurkii hadalkooda amaan dhegaystay waxaan is idhaahdo malaha waxtar bay bulshada u leeyihiin kumaan arag waxay u badnaayeen aflagaado hanjabaad faan iyo waxyaalo la mid ah walaalahayga reer wadani dadkeenu dabeecad buu leeyaho waxay odhan jireen أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما هو هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما qofkaad necab tahay halka u dambaysa naciibka ha geyn maalin baa saaxiib waxa laga yaabaa maalin saaxiib noqotaa qofka aad jeceshahayna halka u dambaysa jacaylka ha geyn waxa laga yaabaa inay maalin u cilowdaan haddaynu sidaa u shaqayno oo qofku mar qura wax allaaliyo wixii uu halka xumaantana halka u dambaysa gaadho naciibka wanaagana halka u dambaysa gaadho iyo saaxiibnimada waa nasiib darro shalay rag badan oo halkaa ka hadlayay kulmiye markay nala joogeen kulmiyana may xumayn iyana may xumayn inta ruu baana jirtay markay xilalka hayeen waxaan imika u muuqdaa xilalka markay hayeen dee uma muuqan lan markaasaa laga rabay inaan waxaas wanaga khaldayn haddii anigu markaan xukuumadda ka tirsanan aan amaano khaladkeedu ii muuqan waayo labada indhood baa ii muuqdo muraayado gareena markaan dibadda ka joogana labadaba ay muuqdaan abaar iyo caws dumaay ii muuqdo oo wanaageedu ii muuqan waayo ceeb bay ku tahay dadnimada ceeb bay ku tahay qofnimada waxaa ka mid aha rag lahaa muuse biix xataa madaxweyne may odhan muuse biix haddii aanu talin garanaynin annaga ha noo yeedho hadalkaa qosol un baan kaga jawaabi karaya wax kale kaga jawaabo garan isku da' maaha isku aqoon maaha isku waay aragnimo maaha isku siyaasad maaha isku ayni maaha isma soo gaadhin isma la eka meel alay meel iska soo gaari karaan ma jirto laga yaaba waktigu inuu muddo kooban baritaaray weliba si deg deg intuu baritaaray qofkaa meel soo gaadhsiiyey dabada ay noqoto nin baa laga sheegayay gabyaayaho abwaanuhu waxoogaa runtii de abwaan wuu yahay laakiin raggii qaarkood ma gaadhsiisnaa baa waxaa laga sheegay anuu kamaan maqle hadraawi iyo gaariyo ilaah naxariisteen baa la soo qabsay oo miyay iga abwaansan yihiin way iga caansan yihiin une horta haddii waxaynu sidaa wada noqoto oo ninkaad maalin kursi soo wada fadhiistaan ama miis isugu timaadeen baad tiraahdo waxbuu dheer yahay soo noo miiska wada fadhinaa waa ayaan daro waktigaa iskiin gaadhsiiyey inuu iskiin gaadhsiiyana may ahayn inuu iskiin soo gaadhsiiyana may ahayn dawaysa dhacday hadday dhacdayna inaad is ixtiraamtaan oo aada ixtiraamto iyana ku ixtiraamaan baa daruuriye in aad ku durduriso ma aha haddii ay wax xumaynayaan iyo haddii wax wanaajinayaan iyo daba wax khaldayaan iyo haddii ay wax toosinayaanba mar baan waddanka cid uga sarraynin kuwa ama wasiir ahaayeen ama ay madaxweyneyaalba iska ahaayeen kuwa cayn ka u hadlaya markaana cabashadani way taallay cabashadani dad un baa markaana cabanayay cabashadani way taallay hore waxaan u soo idhi raggii hadlayay qof walba bulshada waxba uu qiimaysan yahay bulshadaana qiimayntiisa ka hadli doonto dee ka jawaabi doonto waxa kale oo iyana jira qolo kale oo
yidhi waxaan nahay aqoon yahano weliba la baxay waxa la yidhaha tabliiq siyaasadeed horta aqoon-yahanku anigu aqoon-yahan waxaan u aqaanaa masalan inan baa jiray halkan meelahan geerash ku lahaa diyaarada helicoptera sameeyey u fikri mid baa jiray meesha cadaada la yidhahdo imika aynu meelaha ku aragno gabadhi sameeyey oo dhaqaajiyey halkan mid baa la yidhahdo qofa la yidhaahdo oo wax badan oo baabuurta u baahantoo dibadda lacag inay geli jirtay isagoo halkan ka sameeyey waxbay ku soo kordhiyeen ummaddii dhaqaale ugu baaqday fikir cusub bay keeneen aqoon-yahan dekaas baa la yidhahdaa haddii laakiin aqoon-yahankeenu uu noqo ka yidhaahdaa maraykan iyo talyaani iyo ruush sidaa lagama isticmaalo oo aqoontiisii kala saari weydo innaga iyo maraykan maxaynu ku kala duwannahay ama saynu u kala samaysannahay ama saynu u kala noolnahay aqoontiisu shay garan weydo dee idinkaa garanaya waxaa ku sheegi doontaan haddii aqoontiisu ay ku dambayso marka u dambaysaa aqoon-yahan waxaan u aqaanaa allah u naxariistee xaaji cabdiwaraab oo kale sheekh muuse goodaad oo kale 120 buu jiray iyo ka badan wax kasta oo dhacda oo xumaana oo ummadda ka dhex dhacday buu hayay siday u dhacday sidii loo xaliilayna wuu hayay sidii loo xaliilayna iyo wixii lagaga baxayna wuu hayay boqol ka horeeyana aabihii buu ka sheeko qaatay boqol ka sii horeeyana aabihii baa awood uga sii sheekeeyey 3 qarni ayuu mashaakilkii ummadda soo maray iyo wixii ka xumaaday iyo waxay ku hagaageen iyo wixii lagu hagaajiyey iyo waxay ku horumartay iyo waxay beriga dib ugu dhacday intaba hayay kaas aqoon-yahan ma yeebsan maaha haddii aqoon-yahanku noqdo wuxuu wado marka dambe uu hadalkiisa ugu dambaysiiyo sida imika jirtaa hadday reer hebel waa layna dulmiyey hadday reer hebel xaq bay naga maqan hadday reer hebel wax bay naga maqan kaas aqoon ma soo kordhinay odayadu intay yaqaaneen uun buu imika gaari marka aqoontiisa wax ka dhinaa buu gaari baan odhan karaa horta xildhibaanka la xidhay xildhibaan bakool anigu dee rag aan asxaabta nahay buu ku jiray wuxuu xildhibaan ku ahaa waxa weeyaan uu u ahaa waa qaranka somaliland qodobadii dastuurku xildhibaanka ku ahaa qaarkooda hadduu yidhi looma baahno ma jiraan waxay ahayd madoobay ahayd ama maalin madoobay ahayd xasaanadda wuxuu ku leeyahay qofku markuu isagu shuruucda iyo xeerarka iyo dastuurka iyo uu ilaalinaya laakiin qofka sidiisa xasaanad isaga leeyahay ma jiro ya wixii ummadda ku ahayd qaranka ku ahayd ku midaysay markuu yidhi maba jiraan xasaanaddu yeelanay maxay tahay markaa